السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أقيارت يوتيوب أني سلامي عشر كنا ما أنتو عكو سابسين هاي سيدان وأبور لهين وينترار مركا إن صورة كدير كرتا إن وانا كدير كرتا أيو بروجرام كارتيد مركا سيدان أبورنا رايت كليك ده كتبنا واحد تكتا نيو تك كتبنا واحد تكيسا وينرار أكتيف أي تكيسا كتبنا ماجي عربتي أيات أسمى سنسا أذيك عربتي كتبنا meel blank meel banaan ayaad klik ku siinaysaa marka soo arkaysaa software-ka marka waxaan rabnay MS Plus iyo virtual machine oo software-ka iyo QuickTime oo mataqaana programkaas inaan ugu dirin qof san ayaan highlight ayaan saarayna dragging ayaad ku sameynay dusha ayaad ugu tooraysaa kadibna waad u jeedaa in uu sameynayo winararki isla markuu ku sameeyo winarka waxaad arkaysaa in computerka oo ku sameynayo ka soo qaadayo faylkii desktopka oo winarka isla meesha ku duubayo markii oo winarka ku duubo waxaad sameynaysaa double click marka u jeeda all program inuu ku shubay waxa kale jiro haddaan soo xiro marwaad waxa jiro notepad ayaad furanaysaa kadibna waxaad ku qoranaysaa wixii tafaasiil adiga aragtina ku qortid marka aniga waxaan iska diyaariyay website-kan hadda ma jiro website wali ma sameyn laakiin macnaha waa iska bravo ina lahay welcome to Ahmed Shafiq website please subscribe my channel YouTube bla bla 10 free video kadibna save ayaa leedahay isla markaas desktop-ka ayaa tagaysaa kadibna marka desktop-ka tagtid waxaan furaysaa all file ayaa leedahay kadibna winararka ayaa raadinaysaa kuwa kana inta waxa ku qoraysaa meeshan waxa aad diratay inaad ku qortid waxaad ku qoraysaa meeshaas si ku qortaan badanaa dadka aan yaray farta readme inta badan ku qoraan kadibna save de markuu saas ku save gareeyo si toos ah ugu dhaxrid kadibna marka double click siino waxaad u jeedaa programyada dhama oo dirto ku qoran yahay marka double click si qofka markuu arko wuxuu arkayaa website-kaagi uu soo booqana haddii xitaa programkaas laga yaabo inuu qof kale intuu ka bedeshay macnaha ka soo qodo kale YouTube-kaaga dhex dhigtay ama website-kaaga dhex dhigtay qof kale ayaa website-kiisa ama YouTube-kiisa dhex dhigtay haddii uu soo download garay software-ka waxa double click marka inta si qofkan wuxuu ogaanaa qofkan website-ka iska leh in uu leeyahay barnaamijkan sababtoo ah waxay tahay programka la download gareynayo qof ayaa website wuxuu kariisanayaa meel oo program ku shubto dadka ka download gareystaan marka sidaas ayaa winar ku sameynay kadibna sidaas ayaad ugu diraysaa marka insha Allah bidna kareem ka faa'iideysan doontaan ya rajaynaya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khairan Somali